السلام عليكم magacaygu waa Amiin halka naga daawanaysan waa kanaalka Faraxlow maanta waxa rabaa inaan ka hadlo xaqiiqooyin ku saabsan dalka Jarmalka inta aan muuqaalkan u gudagelin waxaan idinka codsanayaa inaad like saartaan muuqaalkan kuna soo biirtaan kanaalkeena YouTube oo ay ku qoran tahay Faraxlow sidoo kale inaad soo follow gareysaan page-keena Facebook oo ay ku qoran tahay sidoo kale Faraxlow waxaan idin leeyahay Ciid Mubaarak Jarmalka waa dal laca ama ku taal bartamaha iyo galbeedka qaaradda Yurub waana dalka ugu xuduuda badan qaaradda Yurub marka laga eego dalalka ay xuduuda wadaagaan Jarmalka wuxuu xuduud la leeyahay 9 dal oo lagu kala magacaabo Netherlands, Belgium, Poland, Luxembourg, Czech Republic, France, Switzerland, Austria iyo waliba Denmark caasimada Jarmalka waa Berlin waxayna magaaladan ku hareereysan tahay gobolka Brandenburg Jarmalka waxay ka mid tahay dalalka ugu dadiyowga badan qaaradda Yurub waxayna ku jirtaa kaalinta saddexaad oo kaliya waxa ka dad badan Ruushka iyo Turkiga oo iyagana ka tirsan qaaradda Yurub Jarmalka waa dalka saddexaad ee ugu dadka badan qaaradda Yurub badkeeduna wuxuu gaarayaa in ka badan 357,000 kilomitir square waxaana ku nool dadyow gaaraya 83 milyan oo qof sidoo kale Jarmalka waxay ka mid tahay dalalka ugu fiican dhanka daryeelka caafimaadka waxayna dhanka daryeelka caafimaadka ee ugu fiican adduunka kaga jirtaa kaalmaha hore oo horumar weyn ayay ka gaareen dhanka daryeelka caafimaadka Jarmalka waa dalka afaraad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka waxaana ka dhaqaale badan 3 dal oo kaliya oo kala ah Mareykanka, Shiinaha iyo Japan sidoo kale Jarmalka waa dalka koowaad ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Yurub micnaha qaaradda Yurub oo idil Jarmalka ayaa u dhaqaale badan Jarmalka waxay ka kooban tahay 16 gobol waxayna gobol walba leedahay xukun hoosaad federaal iyo xukuumad hoosaad u gaar ah Nordrhein-Westfalen waa gobolka dhaqaalaha ugu badan ka soo gala dalka Jarmalka waxaana gobolkan lagu sheegay inuu yahay gobol ka dhaqaale badan qaaradda Afrika oo idil micnaha asagoo gobol ah ayuu ka dhaqaale badan yahay qaaradda Afrika oo idil Nordrhein-Westfalen waa gobolka ugu dadka badan Jarmalka waxaana ku nool gobolkan 18 milyan oo qof Jarmalka waxay ka mid tahay dalalka ugu wax soo saarka badan dunida waxaana ku yaala shirkado badan oo caalami ah oo laga yaabo inaad adigaba taqaan waxaana ka mid ah shirkadaha gawaarida ee Volkswagen, BMW iyo waliba Mercedes-Benz iyo shirkado inta ka sii badan Jarmalka waxay leedahay baasaboorka saddexaad ee adduunka ugu xoog badan ama ugu fiican oo kaliya waxa ka xoog badan ama ka fiican baasaboorka Japan iyo baasaboorka Singapore baasaboorka Jarmalka waxa lagu tagi karaa 189 dal waliba fiisa la'aan ama shuruud la'aan muuqaalkan halkan ayuu ku dhamaaday waxaan filayaa inaad muuqaalkan ka heshay haddii aad muuqaalkan ka heshay ha ilaabin inaad like saarto muuqaalkan kuna soo biirto kanaalkeena YouTube ee Faraxlow sidoo kale inaad soo follow gareyso page-keena Facebook oo ay ku qoran tahay Faraxlow waxaan idin leeyahay mahadsanidin aragtidaadana nugula wadaag qaybta hoose ee commentiga muuqaalka xiga waxaan rajeynayaa anagoo faraxsan oo caafimaad qabna oo isu xiisnay inaan soo laabano mac salaama